أنت كابحه ودجالك الصومالي كسوق قادي الصومالي الآن مرت دجالك هو حنورنا دجال أي وضان دولة مقدسة كريسة واحد إذا عضه يدد كورياشة هي صحافة وأنت بدن عن كم غلاية استعمالها بوتلاند يسوونها بوتلاند يسوونها تسمحيها والله بدي ركسة وادتكم إذا وحال على هراء تاريخنا ولا حيسوق قارينا ما شرتوا وحيسوق بسان ما شرتوا وحوي سياسات كتبت مقدشو دولة ديس حيسوق يسي وأي كوح دون السائل كوح الرسالة ما هيرجلسوا إن تهاي دولة كتاليس الصومال الآن إن أنا تشيرين وحلا قرن الصومال الآن وياهي قبل أي حمر كتاليسو أو فرماتة يرزاروه أي عالم فوتو سيان إن تهاي قبل هذا أو تلاميذ كمذا مركز الصومال لو تدير تنصر نضاد أتكيستي قرنميد ياهي أذيه إياه أو وح أراد أوجد بينين دولة حمر كريسان دولة المكريسان وحلا نقطة إن عيدا كعب لسه الصومال وأنا سبدر رمانت إن أنت صار من يريه أي كل إنسان تقال أي وضع سياسيين أما كرسي فلان كل مرة كيسة أكو دونيسة أما أود إيو كرسواني أنا أمد وهينن ومرهورة كجوتي وكجوستي أي كل همونيان إن حوك سوق عنجليان سوماليلاند نوضو يكون أساسنتي لحد نوضو يكون رميستي وحكستو خلاف ويماده مر والب خلاف ويماده لديدي ما يخلاف سوماليلاند خلاف يويناد بني آدم نورسي كمته qoyska inanka iyo aabaha iyo hooyada iyo inanta isdhaayba khilaaf ka yimaada dadka wada shaqeeyo ka yimaada shirkaduhu ka yimaada khilaafku waa nolosha bini aadamku ka mid qabaa'ilku ka yimaada deegaanadu ka yimaada wuu inala nool yahay bini aadmigana waxa ilaahay xul saaro khaliifada ardayga uga dhigay inuu khilaafaadka xalliyo iyo dhibaatada kale ka hor yimaado marka Soomaaliland dhibaatooyin badan baa ka hor yimid gudaheeda dibaddeeda dabeecadahan iyada xallisata waayo qofka Soomaaliland wuxuu aaminsan yahay inuu nabad wax ku noqon karo Soomaaliland kayay ka wadi wuxuu ka daalay colaadaha wuxuu ogyahay colaadaha waxa uu leeyahay mujtamaca ugu badan Soomaaliland oo cimrigooda 40 jir yahay waxay ku garaadsadeen oo ay wada garanayaan dhibaatada colaadu leedahay marka qof waliba ka hortaga colaada marka dhibaatooyinkeeda gudaha nabad ku xalisto caalamkana waxay u fidinaysaa nabad dariska nabad u fidinaysaa caalamka oo nabad u fidinaysaa si kala hadaan idinku sheego juhdiga Soomaaliland ku bixiso nabadda adduunka oo dhan dhaqaalaheeda oo aad ogtiin kuwa ugu yar adduunka xagga hoose kaga jiro inta iskuul iyo biyo iyo caafimaad ka goyso waxay ku nabadgelyada caalamka oo dhan iyadoo ku ilaalisa xuduudaheeda oo dhan xuduudda badeedu waa 800 kilomitir dhaqaalaheedana waa ognahay haddana Soomaaliland waxay waxeedu u hurtay oo ardaygu iskuulkiisii maartay wuxuu ka heli lahaa laabkiisa u laayay oo ka caafimaadka dawadiisa u laayay oo arday badan ama mid badan caafimaad ku leeyahay waxa weeye 800 kilomitir ay nabadgelyada ku ilaalisa xuduudahooda ay dalka jaarkayeen dhammaan nabadgelyada ku ilaalisa ka Ethiopia ugu dheer waxaana wadahay nagu gudbo ka Djibouti waa jira waxaana wadahay nagu gudbo ka Puntland ee Soomaaliya kamid ah gobolka dawladda state-ka federaalka Puntland oo kamid ah Soomaaliya xadkeeda oo dheer oo aan xad leedahay maanta ay noogu horeysa wax colaad ka dhaca maantana waxa la keenay waa colaad laga soo reebay Muqdisho saadarteed ciidankeenu wuxuu tagay tukaraq bishii 8 bishii January 8 dad badan baa yiraahdaa sababta waxa kiciyay ciidanka Soomaaliland muxuu tukaraq u tagay ciidanka Soomaaliland tukaraq wuxuu tagay 2013 wuxuu tagay 2015 waxa mar degay ciidan kale ciidanka khaatwe ee maanta Soomaaliland la safan ee ka hortay Puntland ayaa degay wuxuu uga soo noqdaa meelaha uu degay ciidanku xilliyada abaaraha jiilaalada iyo guyada buuga markay biyo jiraan uu aag dorsada marka jiilaalku wuxuu degaa meel biyo leh ila magaalada ma joogo ma haysteen marka guugi iyo ay dhacayaan roobka iyo kanaacadu wuxuu ka baxaa ciidamada waxa loo raraa meel ka baxsan wabiyada
iyo meelaha kale calaho taagin baa loo rabaa ciidanku dalkiisa halkii uu kolba ku habboon markaa ayaa loo rabaa markaa wuxuu u tegey iyadoo kaliishii ku leedahay iyo jiiraal dheer la filayay meel biyo doonay dambi maal uu galay ciidankaygu hadduu dalkiisa meel kamida degay waanu degaya waxuu gudanayaa waajib dastuuriya dawladdu ciidanka dalka dhexdiisa kolba halkii u danay u raraysa waxaanu gudanaynaa waajib dastuuriya in dalka xuduudta la sugo inuu Soomaaliland wadayaa inuu Soomaaliland daafaco 75 kilomitir bay kasoo duulaan ciidankaas halkaas ku soo weeraraa ciidanka markii laga wada hadlay ee dhowr jeer ay ciidamada ka soo baxay garowge oo waxay diiday inay takraq timaado inaad soolba soo gashaan halkay takraq wada joogsanay waxaan ku niri Soomaaliland waa joognaa xadkayga 15 baa ka haray garbixiyaana maxaa qoosatay muqdisho madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare maxaad qoonsatay jawaabta soo baxday waxay ahayd waxa ku jirtaan loo idaan lahayn oo xadadkii isticmaalkii miyaa la bedelay haddii xadadka isticmaalka la bedelo afar kibad dee waa isku dhex yaacaysa caalamku kiiba ku dhisay isteeska xamara iminka aynu maqalno koonfur ee la yidhaahdo Jubbaland iyo koonfurta Baydhabo iyo Hiiraan iyo Jubba Jawhar iyo Hiiraan iyo Galmudug iyo Puntland waxay ku salaysan yihiin xuduudiisa 60kii markii uu ka tagay Talyaanigu ay u kala qaybsanaayeen waa goboladii Majeerteeniya Hiiraan Alta Jubba Lower Jubba ayuun baa loo rogay state taasaa khalkhalaysa haddii laga tago marka annagu maanaan samayn xuduudada ay sameeyeen tala Ingiriiska iyo Talyaaniga u dhexeeya maanaan samayn waa wax caalami ah cunfi kuma tagayna xataa iyadoo qabin waxaan tagaynaa tiyo Soomaaliya u dhan tahay oo reesoor kow ka yihiin oo sanaag bari ka kow tahay oo inay Soomaaliya wax dhisata ay dan mooday oo isugu timid siyaasiyiintii ugu waaweynaa ee reesoor ee jabhada sameeyey ee ciidamada abuur Soomaaliya ka soo horjeeda waa inaga nabad ku heshiinay isii baa ugarasay xayro toosiya ka gudoomiyaha khaatuma ku wahayd laba ahayd oo tukaraqdaa intay degtay aynu ciidan ahaan iskaga horin 2015 waa kan Ali Khaliif maanta markaynu heshiinay Soomaaliland oo dhan iyo deegaanada Sool iyo Sanaag bari ayaa waxaan qabsay inuu xadkeena gari ku gaarno waxaanu gaarnay xadkeena si dadku nabadgelyo si mashaariic loo doono caalamkana dhul nabada ay wax laga qaban karaan si dadku u dego si biyo loogu qodo si iskuul loogu sameeyo si caafimaad loo sameeyo waa in nabadda xadkeena soo xidho meenu waxyaalaha dhacay wax ka mid ah week ka hor maalintii bisha 19 16 meelaha weerar laga soo diray afar gaari oo technical oo ka yimid garowge ayaa waxay raas ka rideen hadaftimo oo ah xarunta saldanada Suudaan Saciid oo aan wixii Soomaaliya ay buuqiyo jirtaan ay xabad ka dhicin wala Soomaaliland ba taageeraysa markaa ninkii odaya siyaasi ah kii madax dhaqameeda kii waxgarada ilaa Soomaaliland baa ama loo hanjabaya ama waxa loo leeyahay dabadka wax ka daalu keenaya baa lagu diray xamba maaha hoos baa la isugu sheegay idaacada rasuul soo fariistay oo habeen hore ka dhigsanaysa garowge hebel ninka xagga amra waadil waxa diidaa oo ka dal koriga dawaadil hadda wadada deegaanka saa wax lagu qabso waxaan u sheegnaa taliska Muqdisho halka ma joogtaan idinkii baa shaayid ilaaliya marka ninka soo jooga iyo ninka jooga cergaabo uga hanjay meesid haddaad soo raaci weydo waan ku xurayaa iyo waan ku xukumayaa xabsiga Ingiriis anagu waxaan leeyahay kanaga soo jeeda wada hadal iyo walaalo maxay kula tahay ayaan ku dhamaanay waan ku heshiin kaanaga gardaran ee labada goor iyo saddex goor soo weeraray ee 15 kilomitir soo duulay ayaanu leeyahay walaalo rag hadii leen walaalo colaad jooji maxaa tabanaysa miir qaban ku hadal
waxaan kusoo koobaya oo caalamkana u sheegaya Somaliland u sheegaya haddaanu Somaliland ahay marka hore duulimaad ma nihin kuma duulayno cidna garoowo wariga iyo colaad ku tagamayna nabad iyo barwaaqo mooyaane ya kaleeda marihin Soomaaliya ka tirsan tahay waa federaalka steedka Soomaaliya ixtiraam baanu haynaa horumarkeedaanu jecelnahay dadkooda walaalnimo iyo waxa naga dhaxeeyo wanaag kuma soo duulin garoowo lagu soo socdo kuma soo socno garoowo ma tagayno qofna wax yeelin bayna Soomaaliya oo ama reer muduga ama reer baydhabo ama reer midna colaad ma hayno waxa la isku hayaa ee Soomaaliya hore u tagtay waa siyaasi tiisi gabay oo dadkiisii dhibay oo anagana doonayno soo gaaro kana ma aqbalan noogu ma Soomaaliya laba maanta xaalada joogta ciidanka iyagu halku 8 January degay uu taagay ma dhaafayo cid walba u sheegayna inta noo dhiman wada hadal baan ku gelinaa war maxaa diidantii ma leh ku qasbi mayno qofka naga soo horjeeda inaan ku qasbno xabad inuu raayay qaato ciidanka warhaas joogay weerar geli maayo xabadna u rid maayo xagga haddiina la soo weerar waa istaafacayna waa ku celin nin siyaasi hore Soomaaliya wuxuu yiri dagaal dheer baa la gelaya ku dheer iyo ku dhowtoona diyaar ma nihin laakiin dad ka maarbud anigu difaac ma ku jiri inta dheeranaysa dadka la insaada aad yaqaan annagu ku gaabanay ku dheertoona ma doorina dagaal waa ka soo daalay mana qaba in Soomaali qof Soomaali maanta dagaal xiiso qabo oo miir qaba waan ku dheeraaday arinta go'aankayga wuxuu ka yahay ciidankayga warkaas joogaya nabad buu ku doonayaa cid weerari maayo xabadna ridimayno Soomaaliya Soomaaliland waxa ka dhaxeeyay wada hadal baa lagu dhamaan karaa kaana diyaar baanuna wixii gardarana gaadhay kii kale ka horreeyay saas ah lamid buu ma farmaajo ku jiray teleconference leeyahay nabad halkayga soo dhaaf maayo xabadda soo ridimayno laakiin shalay berito waxay noo tahay 15 shalayna laba goob bay ka soo weeraray waxaan mu soo weeraray wuxuu dagayay baruhu aroorta ka soo weerar qaadanay madaxweyne iska soo reysay yaa garantiir sariir berito baad aan ku jiraan weerar gal ma galaya leeyahay waa gudan wixii ka dhacay marka binaadku qowl bisla qowl ka ekada nin meel u jeeda hadal ma xiraayo waxaan arkayaa in aan dadka Puntland dagaalka daruugu jiray dagaalku mid siyaasad ah Soomaaliland waa gobol kamid ah caasi garoobada xoog baan ku muquurinaya xamar ka soo baxay oo la soo maray Cabdilmaan Deewarka marka ninka wada hawsh yana ka hadlay dhaawacii meel diyaar soo dirno xamar loo geeyay meelada Turkiga uu qaaday ciidankiisi dhaawac ah meel isoo ku saaray xamar ku tagay boqosho ka ahayn maxaa biskiina Cabdillaan la isticmaalay aan karaade haddii nabad la doonayo nabad nin baa dabada ka wada halkaas ka socota nimanka waan ka xumaa aan dhalinyarada Puntland reebel baa la yaari ka ablaya oo la soo raxmaro aad baan uga xumaa dambina ma laha waxa loo soo raxmaray madaxweynahooda oo malaha isaguna siyaasiyiin uga jeedaan oo kursiga dhaastay waqti ajoon marka waan la hadlay adeer hadday wax ka waan cid wax ka waan baan la hadlay cid qowlo ilaahay ka yaabso ergay ku dhahday hirgariya waa la qaata laakiin qof aan wacdahay maxaa kala galay ilaa maalintii jeeno eerkeedii qof walba waxaan balan qaaday inaan ciidanka loo kala afar xabad riday حتى مررك قاركود waxaan u diyaarsan ka inay hore xagga hore iska eegaan taliyash maalin walba waxay gaaraan 5 kilomitir hore maalintii hore waxay dhaafeen bil qaboobe oo xarintooda ahay waxaan go'aan ku adin la soo celiyo ciidamada bal ciidan guul gaaray oo cadawgu si jabiyo oo jeeri karaayo oo leeyahay ka soo noqon ka war nabad baan ku doonaynaa dadka deegaanku nabad galaan baan doonaynaa inaan deegaankayga la soo jeerin oo dadka dhulka deegaan aan ciidamada hadeen baan doonaynaa ku socon laakiin hal cidi qolkaas ka go'ay